madmadow ayaa ku deyran kulankii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku dhex maray magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi. Ambassador Munika oo ah la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha Kenya ayaa sira badan daaha ka qaaday. wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay ku heshiiyeen inay furmaan madhabu heshiisiin ba mise waa kala dhaqa. warbixinteenana ayaynu ku falaqaynaynaa sarkaalka sare ee ka tirsan waddanka Kenya iyo siraha uu daboolka ka rogay. labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland kama ay hadlin kulanka labada madaxweyne dhex maray hase ahaatee Ambassador Munika oo ah la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha waddanka Kenya ayaa kulankooda waxa ay kaga faallootay barteeda Twitter-ka waxana ay sheegtay wadahadallada ay ku heshiiyeen Somaliland iyo Soomaaliya inay yihiin kuwa dib u heshiisiin ayna ku faraxsan yihiin inay qaateen wadada nabadgelyada iyo isfahanka maadaama oo arinta Hargeysa iyo Muqdisho ay muddo dheer soo jiitamaysay. sarkaalka sare ee ka tirsan waddanka Kenya ee Ambassador Munika ayaa barteeda Twitter-ka waxa ay ku soo qortay waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan dhinacyada inay ku socdaan wadada nabadda waarta. 8 December hogaamiyayaasha Somaliland iyo Soomaaliya waxa ay ku heshiiyeen dib u heshiisiin. haweeneydan Kenyaanka ah ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda inay meeshaasi ku sugnayd iyo sidoo kale inay iyada lafteedu xog ka heshay kulanka labada madaxweyne ku saabsan oo sidaa darteed ay Twitter-keeda ugu faafisay fariintan. kulanka labada dhinac ee Hargeysa iyo Muqdisho ayaan ilaa iyo hadda xog rasmi ah laga hayn marka laga reebo labada madaxweyne ee Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud inay 8 December isku arkeen magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi. hase yeeshee sarkaalkan ka tirsan waddanka Kenya ee bartiisa Twitter-ka fariinta ku faafiyay ayaa waxa uu adeegsaday ereyga dib u heshiisiin. taasi oo gelinaysa kulanka labada madaxweyne mugdi iyo madmadow badan oo ay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland dhalinayso inay su'aalo badan iska weydiiyaan. xukuumadda Somaliland ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin kulankaasi dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.